Hi, Jay. You Hey. look handsome to me. I just saw a picture of you. No, you're giving me kind honors. I look like How are you doing? How's it going, Jay? it's going, you know what I mean? I'm You're a champ. You're It's- fighting it, right? You're just fighting it? it's what the Irish do, right? nin xanuun halis la ildaran oo ku sugan gobolka Connecticut ee waddanka Mareykanka ayaa waxa uu rumowday riyadii uu lahaa inta uusan dhimanin ninkaasi riyadaasi oo ahayd inuu la hadlo madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump kadib markii uu telefoon lama filaan ka helay madaxweynaha waddankaasi ninka uu madaxweynuhu telefoonka u diray oo lagu magacaabo Jay Brad ayaa waxa uu qabay xanuunka inta badan khalkhaliya hawsha sanbabada dhawaan ayaana laga saaray cisbitaalka oo loo celiyay guri kadib markii meel lagu baxnaaniyo ay u diyaarisay walaashii oo xildhibaanad deegaana isla markaana ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Jay waxa tahay nooca ragga aan qadariyo ayuu yiri madaxweyne Trump oo telefoon u diray ninkaasi waxa uu intaasi ku sii daray halganka halka ka sii wada halganka waan ku wada jirnaa Erigo ah wiil uu dhalay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday inuu hadiyad khaas ah u diri doono Jay Brad warka ku saabsan wicitaanka waxaa markii hore baahisay warbaahinta lagu magacaabo New Haven Register oo ka soo baxda gobolkaasi Connecticut ee waddankaasi Mareykanka warbaahintaas oo doonaysa in aqalka cad ee waddankaasi Mareykanka ay gaarto xogta labada qof ee kala xisbiga balse iska can qabanaya wargeyska ayayna xildhibaanadu u sheegtay in 100% ay taageersan tahay xisbigaasi dimuqraadiga madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa markii uu la hadlayay 44 jirka xanuunsanaya waxa uu sheegay inuu sawirkiisa arkay isla markaana uu qurux badan yahay hase yeeshee Mr. Barrett ayaa ku qoslay hadalka naxariista leh ee ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump intiisan uu muuqaalkiisa ka saarin meesha Mr. Barrett ayaa sheegay inuu yahay qof madax bannaan oo codkiisa siiya kolba qofka uu doonayo sanadkii 2008 waxa uu codkiisa siiyay madaxweyne Barack Obama balse ma uusan taageerin sanadkii 2012 kadib markii uu ka soo horjeestay hanaankii daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii ka horreeyay ee dimuqraadiga ahaa dhakhaatiirta ayaa sheegay inuu sii noolaan doono muddo 6 bilood ah balse waxa uu rajaynayaa ninkaasi inuu gaari doono ilaa 2020 Siciid Axmed Tamreyse wararka telefishinka caalamiga ah Star